Assalaamu calaykum, halkani waa Somodern Media. Dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway oo lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 43,000 waxay ka mid yihiin bulshada dalkan degan kana qayb qaata haddii ay noqon lahayd siyaasadda iyo qaybaha kale ee bulshadaba. Haddaba, markay noqoto xisbiyada iyo siyaasadooda, waxay yara adag tahay in la fahmo. Dalka Norway waa dal dimuqraadi ah, ayna ka jiraan xisbiyo badan, kalena aaminsan fikrado kala duwan. Sidaasoo ay tahay u kala qaybsan laba garab oo halkii garab ka kooban yahay xisbiyo kala duwan. Tusaale ahaan, xisbiyada Road garoonka la dhaho ee bidixda kana kooban A, B, SV iyo SP waxay soo wada dhisayaan dowlad ay ku midaysan yihiin haddii ay ku guuleystaan doorashada 2021. Mid kastana waa inuu isku dayaa fulinta siyaasaddiisa, inkastoo meelo badan oo ay ku kala duwan yihiin ay jiraan. Haddaba, xisbiyada ka dhisan waddankan oo dhan ma soo wada gelin baarlamaanka oo kuraas kama helin doorashadii u dambeysay ee 2017. Waxaa kuraas ku leh baarlamaanka ilaa 7 xisbi. Xisbiga ugu yar oo lagu magacaabo Rut wuxuu haystaa 1 kursi. Midka ugu weyn waa Beider Party wuxuu haystaa 49 kursi. Hordhac ayay intaas iga ahaydee. Muhiimadda aan u socday ayaa ah inaan kala ogaano xisbiyada dalkan ka jira, siday u wada shaqeeyaan iyo weliba waxay kala aaminsan yihiin markay noqoto arrimaha kala duwan ee bulshada saameynta ku leh, sida dhaqaalaha, soo galootiga iyo qaxootiga, arrimaha dibadda iyo fahamilada. Xisbi kasta wuxuu leeyahay barnaamij u qoran oo uu rabo inuu fuliyo, ayna ballan qaadaan inay fulin doonaan wixii uga hirgalaa. Waxaa afeef iga ah inkastoo xisbiyadu ay u wada shaqeeyaan siday isugu dhow yihiin siyaasadda oo dowladna soo wada dhisaan, haddana xisbi kasta barnaamij u qoran ee ay aaminsan yihiin way u dagaalamaan. Waxaa jirta in xisbiyada qaar ay meelo ku kala fog yihiin, laakiin ay meelo kale isaga dhow yihiin, sidaasna wada shaqayn ku dhex mari karto. Aan ku bilowno xisbiyada 7 ah ee hadda kuraasta ku leh baarlamaanka iyo barnaamijyadooda. Intaan is leeyahay waa muhiim waana ka gaari kartaa. Sida aad halkan uga jeedaan, line-kan dheer waxaa lagu tilmaamaa qaabka xisbiyadu isugu dhow yihiin, waxaana loo kala saaraa bidix, midig iyo dhexda ama centrum, inkastoo hadda aad moodo in ay isugu timid labada hore keliya. Midigta fog haddaan ka bilowno waa xisbiga FRB, waxaa ku xiga xisbiga Høyre, waxaa ku sii xiga xisbiga Venstre, waxaa ku sii xiga xisbiga KrF oo ahaan jiray xisbi dhexda ah laakiin hadda aaday dhinaca iyo midigta fog. Waa 4 xisbi ayaa wada dhistay dowladda hadda jirta, iyadoo hadda FRB ay ka baxday oo ayna u tahay laakiin taageere. Dhinaca bidixda waxaa ka mid ah xisbiga Rut oo ah xisbi yar, waxaa ku xiga xisbiga SV, waxaa ku sii xiga xisbiga AB, waxaana ku sii xiga xisbiga SB. Waxaa kaloo jira xisbi kale oo asaguna dhexda lagu tilmaamo oo cuseybna ah, laguna magacaabo Miljöpartiet de Grønne ama MDG. Xisbigan waa dhexda, laakiin waxyaabaha uu sheegay inuu samayn doono 2021 ayaa waxaa ku jirta in uu taageeri doono xisbiyada bidixda haddii ay dowlad soo dhisaan. Barnaamijyada iyo siyaasadooda xisbiyadan ayaan rabaa inaan maanta halkan kusoo koobo oo aan dadka Soomaaliyeed wax uga sheego. Xisbiga FRB baan ku bilaabaynaaye oo midigta kasoo bilaabaynaaye. FRB waxa uu sheegtaa inuu yahay xisbi liberaal ah, kuna salaysan dastuurka Norway, aaminsanna dhaqanka dadka Norway iyo dhaxalka dhaqanka reer galbeedka, midkaasoo ku dhisan nolosha diinta Kiristaanka, waa sida iyagu u qoran. Waa xisbi xag jir ah oo dhinaca midigta fog xiga, laakiin sheegtay dhaqaalaha dhinaciisa ay aaminsan furfurnaan. Waxaa hogaamiye u ah gabadh la dhaho Siv Jensen. Doorashadii 2017 wuxuu xisbiga FRB helay 15.2%, kana dhigtay xisbiga saddexaad ee waddanka u weyn. Hadda ra'yi ururinihii u dambeeyay waxaad moodaa in xisbigan hoos u socdo, isagoo 10% wax ka yar ay sheegeen in ay u socdaan doonaan. Waxaa wada ognahay in dowladda ka baxeen 2019, laakiin ay taageeradooda dowladda ku taagan tahay oo ay dhici lahayd aqlabiyadna ay lumin lahayd Arne Solberg. Haddii ay dowladdan taageero siin lahayn, ay la wareegi lahaayeen xilka xisbiyada bidixda ee uu hogaamiyaha u haya Jonas Gahr Store. Haddaba FRB wuxuu ka aaminsan yahay arrimahan kala duwan. Aan ku bilowno soo galootiga iyo qaxootiga. Waad ka dharagsantihiin aad buu xisbigan ugu adag yahay. Intii ay dowladda ka mid ahaayeenna waxay soo rogeen sharciyadii ugu adadkaa, iyagoo gabi ahaanba raba in laga tago sharcigii qaramada midoobay oo u dejisay qaxootiga oo mid cusub la sameeyo. waxyaabaha kale aan rabo inuu ka hadlo waxyaabuu ka aaminsan yahay waxaa ka mid ah faamilada.
waxay rabaan in waalidka qofka qaadanaya fasaxa marka ilmo la dhalo ay iyagu doortaan oo dowladdu qofna khasab kaga dhigin cidda qaadanaysa. Hadda waxaa khasab ku ah hooyada iyo aabbaha in mid kasta fasax markiisa qaato oo ilmaha guriga ku hayo. Lacagta la bixiyo ee la dhaho barter-ga iyo lacagta la dhaho contant-istootaha ama lacagta kaashka ee la siiyo waalidka ilmaha guryahooda ku haystaa oo hadda dowladdu bixiso, waxay rabaan in dowladda laga wareejiyo ay bixiyaan degmooyinka ama komunaalka. Dhaqaalaha in la yareeyo ayay aaminsan yihiin cashuurta oo ay dowladdu bixisay inta badan. Arrimaha dibadda oo aan rabo keliya inaan kasoo qaato waxay ka aaminsan yihiin Israa'iil iyo Falastiin. Siyaasadda Norway waxay FRB aaminsan yihiin in Norway ay taageerto Israa'iil. Xisbiga kale ee aan rabo inaan ka hadlo waa Høyre. Høyre waa xisbi conservative ah ama kuwa adag dhaqanka iyo diimaha, sidoo kalena raba in la fahmo dhaqamada kale si casriyaysan. Waxaa hogaamiye u ah Arne Solberg, waa ra'iisul wasaaraha hadda ama 7 sano u dambeysay. Doorashadii 2017 waxay heleen 25% codadkii, midaas oo ka dhigtay xisbiga labaad ee ugu weyn Norway. Siyaasadooda soo galootiga iyo qaxootiga waa mid dhexdhexaad ah oo ay aaminsan yihiin in ay la saaxiibi karaan labada dhinacba. Inta badanna hadda ay la saaxiibahayeen xisbiga ugu adag dalkan xagga qaxootiga iyo markay noqoto soo galootiga. Xagga faamilada waxay aaminsan yihiin in lacagta contant-istootaha ama kaashka ee la siiyo waalidka midka hadda sidiisa loo dhaafo oo aan la bedelin. Sidoo kale in la kordhiyo lacagta marka ilmo la dhala rabo la siiyo hooyada. Fasaxa waalidku qaato dhasha kadib in laga dhigo mid ay iyagu doortaan. Xagga dhaqaalaha waxay aaminsan yihiin iyaguna in cashuurta la yareeyo. Israa'iil iyo Falastiin iyaguna waxay aaminsan yihiin laakiin in laba wadan oo xor ah ay noqdaan oo isdhinac degan oo walaala. Xisbiga Venstre oo ah xisbiga Norway ugu weyn waa xagga da'dee 1884 ayaa la aasaasay. Wuxuu helay doorashadii 2017 4.4% waana wuxuuna noqday xisbiga lixaad. Soo galootiga iyo qaxootigu waa mid u naxariista laakiin inta badan la shaqeeya xisbiyada aadka ugu adag arrimaha qaxootiga ee FRB iyo Høyre. Waxaa jira arrimo kale oo iyaga aad ugu muhiimsan oo inta badan ku beddeshaan arrimaha qaxootiga iyo oo aysan sidaas u siinin muhiimadda. Xagga faamilada waxay rabaan in loo kala qaybiyo 3 qaybood. Waxaa la dhaho for elder permission oo ay aabbaha iyo hooyadu mid kasta hal qayb qaato, qaybta saddexaadna ay u noqdaan xor. Arrimaha siyaasadda ee arrimaha dibadda Israa'iil iyo Falastiin in laba wadan ay noqdaan bay aaminsan yihiin. Xisbiga kale aan rabo inaan ka hadlo oo asna midigta la shaqeeya waa xisbiga Koaref. Waa xisbi siyaasaddiisu ku salaysan tahay diimaha. Waxaa hogaamiye u ah Robstad. Qaxootiga iyo soo galootiga waxay iyaguna aaminsan yihiin loo naxariisto laakiin waxay la shaqeeyaan iyaguna xisbiyada kale ee ku adag arrimaha qaxootiga ee Høyre iyo FRB. Faamilada waxaad moodaa inuu yahay xisbi si weyn ugu fiican iyagoo ahaa xisbigii ka dambeeyay contant-istootaha waxaa la dhaho ama lacagta kaashka ah ee waalidkan ilmaha guryaha la jooga la siiyo. Israa'iil iyo Falastiin dhexdhexaad ayaa u qoran inkastoo aad moodo in ay u janjeeraan dhinaca iyo Israa'iil. Xisbiga Milio de Garone waa xisbi aad u cusub aadna u yar. Sida aad magaciisa ka dareemaysaan waa xisbi dhinaca miliyooga saare awoodda oo raba in hawada iyo kulaylka wax laga qabto. Siyaasadda uu ka aaminsan yahay qaxootiga waa mid naxariis ah. Faamilada waa in ilmaha loo koriyo si aan faqiirnimo ahayn. Lacagaha qaar waxay ogol yihiin qaarna way ka soo horjeedaan.